waxaa lagu xukumay 15 sano oo u dheertahay shaqo aad u adag waxa uu booqday dalka South Korea oo uu haysto diktatoriga lagu magacaabo Kim Jong Un haddaba dalka waxa uu ka sameeyay khalad yar oo marka dalalkeenan caadiga la eego wax aad u fudud ah laakiin halkaas uu ku mutaysay 15 sano oo xabsiya guys begging for North Korea's forgiveness. I entirely beg you for your forgiveness. What crime did he commit? Will he be forgiven? Assalamu alaykum. Kusoo dhawaada mawduucina maanta. Waxaan inii wadaa mawduuc aad u xasaasi ah. Wiil lagu magacaabo Otto Warmbier oo u dhashay dalka America oo dhashay taariikhdu markay ahayd 1994 December oo ku dhashay gobolka Ohio ayaa oo kamid ah ardayda ka dhigata gobolka Ohio jaamacadda ayaa waxa uu sameeyay 2016 waxa uu sidii madax taxi iyo faakahays waxa ugu tagtaa dalka South Korea oo micnaha fasax uu helay buu sidii ku aad dalkaas haddaba maxaa dhacay markuu dalka aaday haddaba markuu dalkaas sida u tagay South Korea wax walba waxa ku biloomay sidii caadiga ahayd wax walba waxa uu socday sidii quruxda badnayd ma sha Allah dalxiiskiisu meel fiican buu u mareeyay haddaba maalmaha kamid ah oo 2016 lagu jiro oo isla dalkaaga ku noqdo waxa uu sameeyay arin noloshiisa uu gabi ahaanba ka qowmeeyay uu bariyo badan ka sameeyay oo noloshiisa gabi ahaan galaafatay ayuu sameeyay arinta uu sameeyay haddaba maxay ahayd haddaba ninkan wuxuu sameeyay hoteelkii uu deganaa waxa ku taale calaamad yar oo micnaha ay ku qornay magaca Kim Jong Un adoo board yar oo ay wadankan uu joogo style calaamadu ahayd amba sign oo ahayd buu ayuu haddaba ninkan isiri xad way u suurta gashay uu xaday airport kuna la tagay wuxuuna sugayay diyaaradii dalkiisa ku noqon lahayd haddaba waxa dhacay qoladii hoteelka ayaa waxa aragtay markuu xadayay ayaa waxa qabatay CC kameradii isagoo iska sugay diyaaradiisa airportka iska dhex fadhiya ayaa horaantii 2017 isagoo sugay diyaaradii la qabtay ninkii dhab la siiyay cir iyo dhul meel looga imid ninkan wad garanaysaa oo Kim Jong Un baa la yiraahdaa dadkiisa adeeradii iyo qaraabadiisa wasiiradiisa ayaa haday qoorta yar leexiyaan la dhaadhiciyaa loo ogyahay mise waaba nin dalka la ka yimid oo isku xaday alaaba aynaan ku shaqo lahayn oo mooyaan waxay calaamada isuga taagnayd magaciisa baa ku qornaa wixii kale ku qornaa yum baa ku qornayd haddaba ninkii waa la qabtay maxkamadda la geeyay wala maxkamadda la horgeeyay ninkii uu baryo toomay waxa I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. But please, I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. It is kuma noqonayo in xariista dalkayga baan iskaga noqonaya ma cid baa dhig jalaqsa ugu leh maxkamadii ha ka hor calaacalood madaxda ha ka hor calaacalo ciidamada joojin ee gadhka waxa loo geliyay 15 sano oo xadhiga oo waliba 15 ka sano ma aha jeel inta la iska jiifo la iska soo baxayo waxa uu dheer shaqo adag oo runtii oo wadada tareen baa lagu dhisi karayaa diir baa lagu dhisi karayaa balaaya lagu jijibinaya wax walba lagu sameeynaya hadba ninkii markay 2 sano xukunkiisu dhacay ninkii saa loogu xamaashay ayaa waxa dhacay ninkii inuu paralyze uu noqdoba oo la yiraahdo war kan dalkiisi inaga celiyay intuu inagu dhex dhiman haddaba markii US lagu celiyay ee laga dajiyay gobolkiisa Ohio ninkii oo runtii garbaha la wado oo xaaladiisu ay kaba dartayba ayaa lagu celiyay markuu wadadkiisii joogay dhakhtarkii la geeyay 6 cisho ka bacdina waaba uu ka haadayba wati dheerayd bay ka raacday uu dhin macnaha uu dhintayba nixsha ka bacdi wala yaabay waxyaabo barka dhaqaatiirta baalayna ay sheegeen waxyaabaha kamid ah oxygen in loo diido macnaha uu qof meel oxygen ku yaray oo ku xirnaa isaga ninkaasina noloshiisa sidaasu brain damage. We have evidence that his brain was deprived of oxygen has to be at least 4 minutes. What happened? ka galay dalkaas runtii dalalkeena inta la imaado Soomaalida ayaa macdanaheena la gurtaa ma ahaane badaheena la gurtaa
innagii baa lacag nagu soo qaata la yiraahdaa waddankaas wax u qabanayo jiingad yarna noo dhisay markaas la iska noqda waddankaas dictatoriga haystaana inna lillaah hal yar oo khalad uu sameeyay buu waxa ku mutaystay bal ka waran isagoo wax dili lahaa amba wasiir afku celin lahaa wuxuu mutaysan lahaa isagoo nool bay gubi lahayn alla inaguma ogo waddan dictatori haysto South Koreana xiiskayga iyo ay naga maqnaato muxuu ahaa faakaysigeedu موضوعنا رمانتا انت سوق كوبنا ويلكا يرباني لو ذاك تاريخيسا او تلو مقعابو انها سنكسو بكبينتنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وذكرنا